ميران محمد سودو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجور يبان الله هاي سودو هذا ومضى جمهورية الصومالي لان يميل يشوغان بوحن يذكر بشارة يا بشار ودق أقوانسي الصومالي لان في دوق الشرقرية وان تشعل هاي عبادتي ونسوق ودني عاو ما شاء الله تبارك الله. مسجدك نبيجه المدينة أيان كسوت تكني بيتك إلهي الحمد لله رب العالمين. وصدق القرآن الكريم قال قصة ختمي ملايين مسلمين أيان ولا تكني مسلمين توردن سنية ذا نقصد عيني ومد الصومالي لاني ومد الصوماليات بونسود عيني إن دتك حاسدك كوان لشوا ذا كحن دبعتين إلهي كقبته إن أمني إيان نبدي يحسلوني إلهي سيو إن إلهي نو سيادية هدين الصومالي لأن هاي نبضة هرمركة حسلوني دا مدني مدى يوذا شركة اعتراف كيا إنو دوني وينو هلا شعبك جمهورية الصومالي لأن مكوشرة وينو هلا اعتراف كيا إنو دوني اعتراف إنك مقناه وحندين شيء إياه إن أدون كنا قوسي هاي إن لين اعتراف سي هاي إن اعتراف كينا أسفي عن لولا الصعودة صدح قضب بان دوني أنا سكوبان وهذا الله صدح ذا قضب وحكم ذا كو سومالي لانو الاعترافي قاب كله اعترافي كوا اللهم صل على سيدنا محمد كوا متقانا ري مقدشو iyo madaxda imika muqdisho joogta haday joojin waayaan walaalo khayr walaal ma fiican tahay inta walaal waa wanaagsan xaaladda ka waran aad iyo aad soo socda ma life kanu gelahay maxamed soo dhawaata haye okay waaye markan dhameeyaad la saarlay walaalayaal allahumma salli ala sayidina maxamed kuwa xamar jooga Somaliland dadka nacab jiritaankeeda mucaaridka ku ah cadawga ku ah xilalka u magacaabay rooga cas u dhigaya haday joojin waayaan walaalna la noqon maayo la isku nixi maayo la isku naxariisan maayo la isjeclaan maayo wala si kala maqnaa qof yaro waxa la wuxuu yahay aanu jirin baa xamar tagaya Somaliland ka tagaya amba fanaana amba mutaqaana waxa la wuxuu yaanu jirin amba cadaawad Somaliland ay u qabaan ay ku xumeynayaan baa la buunbuuninaya roog cas loo dhigaya xilal loo magacaabaya kii yaraaye mahdi lagu sheegayay ee Norway joogay ee sharciga lagala noqday ee laha madaxweynaha Saylac iyo mataqaana madaxweynaha Saylac maxay Saylac state iyo waxbaan ahay lahaa hadday imika Soomaaliya la keenay xil buu magacaabay xarmaajo xil buu magacaabay maxaad halka ka turjumanaysaa dadka Somaliland doonayay inay kala jarjaraan ee kala qaybinaya waxa laga soo istaara xamar baa laga soo istaara maamulada xamar ka jira waxan ka dambeeya qabaa'ilada taas waxay ku cadeynaysaa marka inankii yaraaye madaxweynaan ahay Saylac iyo maxaa ku dhaay lagu hayo maxay state hayay ee sharcigi laga soo kansalay iyaga qurbaha ku abaabulayay iyaga laha madaxweyne sheego iyaga laha halka ka hadal maanta markii Norway laga soo tarxiilay Soomaaliya la keenay xil buu magacaabaya farmaajo miya maxaa walaal ku tusaysaa Ilaahay baan ku dhaarshay arrimahaas markaad aragto walaalaya qof yaro fanaana amba waxa la wuxuu aanu jirin baa muqdisho tagayo roog cas baa loo dhigaya wala buunbuuninaya bar hadda inaga 24 saacadood way imaadaan ganacsi bay u imaadaan madaxdooda timaada wax alla waxa yihiin ma naqaano ma buunbuunino waynu awoodnaa salaadiintooda hadda maalin dhaweed bari dhaweed waad ogeedeen mid suldaanka guud ee daarood ee waliba oo maraxaana in madaxtooyada lagu soo dhaweeyay oo uu yiri Somaliland waan aqoonsaday markii Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha ahaa maalmo dhexdii ahaydna salaadiinta iyo sheekhan indhaha la maxaa la yiraahdaa iyo culimo badan baa madaxtooyada lagu soo dhaweeyay cid reer Somaliland oo buunbuuninayso qaadqaadaysa lama arag waxba ma moodnaba maxay ku tusaysaa walaalayaal marka qof Somaliland jiritaankeeda ka soo horjeeda amba cadow inagu ah roog cas loo dhigo magaalada Muqdisho xil loo magacaabo
laynagu soo taarged gareeyo la idhaa warbaahinta waxaad ka tiraa Somaliland ma jirto iyo waa maamul goboleed iyo Soomaaliya laga war ma shakhsiyaad baa Somaliland matali kara waxaanu u sheegaynaa hadday joojin annaguna waanu u ducaynaynaa waanu ka damqanaynaa waanu ka ilmeynaynaa dadka dhimanaya dadka dhibaataysan horumarkoodaanu jecelnahay amnigoodaanu jecelnahay walaalnimadoodaanu jecelnahay iyaguna kafanka yagay tolayaan ka war ma laysku soo dhawaanaya waayahay walaal ma la noqonaya ma lays jeclaanaya sheergareeya fiidooga qodobkaa iyo waxaan ka hadli doonaayo kale qodobkii kale allahumma salli calaa maxamed labada qodob shacabka Somaliland iyo xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland maxay ka qabaan in dadka xamar tagay Somaliland ka soo jeeda qaabkeebeen ula dhaqanaa maxaa laga yeelayaa shacabka jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadda saddexdaa qodob baan ka hadlayaa haddaba intaana ka hor dhicin odaygii dabacasar waa bil Ramadaan waa maalmihii ugu dambeeyay khayr baanu soo shaqaysanay waanu soo ducaynay odaygaasi life buu soo galay makhraataad ka ahaydeen waxa uu sheegayay dadkii xabadda ku qabtay inay sheekhaal iyo culimo iyo ay wax ka dambeeyeen walaal booliisku la xidhiidhay waxa weeye booliiska u qaabilsan argagixisada weeyaan ninka horaan idinku sheegay sheekadii waa xumeeyey dad badan oo Soomaaliyiina way ku xidhan yihiin ninkaas meel xun buu mariyay isaga iyo ninka Ismaaciil Bool iyo la idhaa gabadha Kristanka ee diinta ka baxday ninka maxaan ku leeyahay duqbilow la idhaa waa la is urursaday waxa la rabaa dariiqada kaliya rabaan dadka inay ku dhibaateeyaan waxay basaasiin u noqdeen booliska argagixisada la dagaalama dabacasar waa kii sheegayay meel xun bay arrintii ka gashay waa arrin aan aad iyo aad u wanaagsanayn in qof walaalkaayo muslina oo qurbaa ka shaqaysanaya waxaanu hayn aad ku sheegto culimadii buu rabaa markaa dabacasar marka masaajidadii uu ka tuugsanayay la yidhi ma soo geli kartid islaan ma tihid bilaa dhaqan baa tahay bilaa diin baa tahay culimadii ay ku kacday ayuu rabaa inuu culimadii Soomaaliyeed ee qurbaha ka wacdiyeysay ummadda u gurmanaysay inuu booliska uu ka u sheego raahdo waa argagixiso sheekhaas waa cinka arrintu meel xun bay martay meel xun bay mariyeen waa bil Ramadaan ilaahay odayga ummadda ka qabto odaygaasi dariiqo xun buu qaaday life-kan in laga hadlo bay ahayd oo la iska cambaareeyo wixii laga sheegi karay laga sheego laakiin inay heerkaa gaadha arrintu maaha dad muslina oo walaalahaaya inaad u adeegsato booliiska argagixisadood basaas u noqoto dhalinyar Soomaaliyeed waa dhaqan xumo waxaan wax nagu cusub maaha waa dhaqan lagu yaqaanay ummadda reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ninka la iska ilaaliyo hal la xidhiidhina waddo xun buu maray ilaahay ha soo hadeeyo ilaahayna ummadda ka qabto sheekh buu sheeganayaa wuxuu ku dhaqmo waad aragteen islaan ma ninka dhaqankiisa waad aragteen saliin macasare iyo balaaye iyo wax isfuulaya iyo ummad la nacdalaya iyo qabiil la caayayo ayuu isagoo 70 jira ka dhigtay qodobka intaan kaga baxo waa idin ka digaya ninka bool iyo la idhaa ninkan la idhaahdo dabacasar ummadda muslimiinta meel ay joogtaba waan uga digaya waayo arrintii way xumeeyeen dacwad kaloo xoriyatu qowlka lama joojin karo xoriyatu qowlka adduunka wax xoriyatu qowlka xiri kara ma jiro laakiin iyaga dariiqada u banaan waxa weyn inay basaas noqdaan oo dadka Soomaalida ah ay ku basaasaan inay argagixisan yihiin waana dhaqan aad u fool xun dhaqankaana cidda taqaana horaan idinku sheegay waxa kaloo idin sheegaya okay daahir cali sow waa mucaarid farmaajo ku mucaaridan yahay isaga soo doortay isaga ululeeyni haddana isagii baa ku mucaariday isagu wax dambiye ma gelin ma garatay way jirtay marar uu dad qabaa'il argagixiso ku sheegi jiray reer Sheekh Saxaaq iyo way jirtay isaga laftiisu qaldanaa markaana qolooyinkan baa lacag ku siin jiray mashruuca soo qaatay oo oran jiray qabiilada ku shaambaday oo lacag baa lagu siin jiray marka hadda imka farmaajo mucaarid ku yahay inuu mucaarid noqdo iyo inuu muxaafid noqdo labadaba xor buu yahay laakiin kuwani wada fool xun bay mareen ilaahay naga nabadgeliyo sheergareeyo fiidiyooga walaalayaal اعترافك أيان يدين شيء أنت أنا اعترافك قلنا واحد يدين شيء ما تقانا نيكي يعني يدين شيء يلا اللورن شري محوها عين عكت ورنكا يسوي شيء أحمد مذوبي عيدا قارة أو بيشيس أبو السمستي مقالة كسمايوه
dadka dega saddex bay u qaybiyeen in argagixistay ku shaambadeeyaanoo sidii afweynaha guryaha loogu dhacaa raggooda habeenkii baa la qafaashaa inna mataqaanaa waxaa laga dhigay caruurtii iyo qoysaskii al-shabaab qabtay oo waddanka waa laga raafaa waa la dhibaateeyaa kufsina way bilaabeen ninka axmed madoobe islaax laydhaa ee ogaadeyna kismaayo xukumaa wanionima dadkan maxaa dhaqankaa ku salliday horta miyaanay ka waantoobayn ciidankaa uu samaystay dumarka meeshaa way kufsadaan way jirdilaan way dhacaan dhaqan aada u xun xabsi aan la garanayn baa ku yaalla ummaddaa ilaahay ha gurmado dee waa dhaqan aada u xun lifekaa la soo geliyay gabadh kufsi ka cabanaysa ciidamada mataqaana war waxaanu idiin sheegnaa way hirgalaa waaya qodobkaana intaan kaga baxo arrintii ictiraafkaan usoo noqonaya arrintii ictiraafka waxaan idiin sheegayaa imaaraadka iyo sacuudigu inay somalilan ictiraafeen maalin dhow baasaboorka somalilan baad ku iman doontaan laba safaaradood oo somalilan leedahayna waxaa laga hirgelinayaa sacuudiga iyo imaaraadka awguuriya baan idin leeyahay walaal kii ka naxayow ka nax kii ku farxayow ku farax somalilan way dhaqaaqday horena aqoonsiba u haysatay maalgashi aada u ballaadhan baa sacuudigu ballan qaaday haddii ilaahay idhaahdo oo laga hirgelin doono somalilan sacuudiga iyo imaaraadkuna waxay u midaysan yihiin maalgashiga dekadda berbera iyo saldhigga military maasha allah tabaarakallah innagu haddaynu reer somalilan nahay siyaasaddu saaxiib joogta ama le dan joogta ah bay leedahay maslaxadeennaa ku jirta cid kasta oo aynu faa'iidada jamhuuriyadda somalilan ka arkayna inaynu soo dhoweyno cidday doontaba ha ahaatee kow shacabka jamhuuriyadda somalilan way ka tilmaaman yihiin dalka sacuudiga ajaanibka kale waa la yaqaanaa rag taabiciyiin oo sacuudiyaanaa jira ninka ka mas-uula sacuudiga dadka afka soomaaliga ku hadlo oo dhani waa nin ka soo jeeda jamhuuriyadda somalilan waxaanu wakiil uga yahay dalka sacuudi carabiya sacuudiguna wuu la socdaa shacabka jamhuuriyadda somalilan inay yihiin shacabka ugu qiimaha badan leh ummadda soomaaliyeed iyo islaamka oo dhan waana la og yahay waa la ixtiraamaa waa la qadariyaa waa la soo dhoweeyaa nolosha ay ku nool yihiin dalka sacuudigana ilaahay yaab buu kuu keenayaa walaalayaal haddaan safaaradihii usoo noqdo sacuudigu lacag ilaa 50 milyan ayuu somalilan hadda iminka doonayaa inuu ku wareejiyo oo aynu dhaqaalaha iyo horumarka kaga shaqaysano xoolihii wuu furayaa baasaboorkii waa laynoo furayaa si hoose oo diblomaasiya hawsha loo wadayaa allahuma salli calaa maxamed safaarado sacuudiga iyo imaaraadku leeyihin baa somalilan laga furayaa allahuma salli calaa maxamed diyaaradaha sacuudiga ka howlgeli doona dee waa awguuriyo soomaaliya iyadu maxay ka dhaxashay soomaaliya waxay la safatay qadarna waa argagixiso waxay maalgelisaa argagixisada caalamka oo dhan runtaan idiin sheegayaa maraykanka iyo reer galbeedkaana qadar ku shaqaysta oo ku baabiiya ummadda soomaaliyeed dalalka dhisan oo dhan waxaa laga baabiyey qadar baa laga baabiyey xamaas bay maalgelisaa masar bay argagixisada masar bay maalgelisaa libiya daacish bay maalgelisaa al-shabaab iyadaa maalgelisaa liiskii argagixisadaa lagu daray soomaaliya markaa cawaaqib xumada ay kala kulmaysaa waa maxay soomaaliya cawaaqib xumaday kala kulmaysaa ninka xaarmaajo laydhaa u horseeday waxa weeye kow allahuma salli calaa sayidina maxamed waxa weeye kursigii jaamacadda waa laga saarayaa soomaaliya waa qodobka koowaad fiisihii soomaaliya ee xajka lagu imanayana waa la madnuucayaa waa qodobka labaad cunaqabatayn baa la saaraya liiska argagixisadaa lagu daray waa qodobka saddexaad ilaaqaadkii waa loo jaray waa qodobka afaraad waxaa caawin jiray waddamada khaliijkay ahaayeen maadaama ay qadar la safatay soomaaliya way u dhammaatay jaamacatul carab waa laga saarayaa fiisahoodii waa laga madnuucayaa dalka shacabkooda ku abtirsada soomaaliya imaaraadkaiyo sacuudiga waa laga soo raafayaa cawaaqib xumada ayay ku dhaqmeen xaqiiqatan waa arrin aad iyo aad aan u wanaagsanayn inaad deg deg wax walba aada u fuliso oonad ka fiirsan siyaasad xumada iyo degdega ninkaasi uu ku kacay intii uu madaxweynaha ahaa bay ka mid tahay wuxuu galaafan doonaa shacab badan oo masaakiina oo bilaa dowlad ahaa oo koonfurta soomaaliya ka soo jeeday oo imaaraadka iyo sacuudigaba runtii si fiican uga shaqaysan jiray oo qoysaskooda mataqaana masaarifayn jiray norway
dad baa jira sidaan idiin sheegayba u ololeynaya in shacab Soomaaliyeed baasaboorada lagala noqdo oo la soo tarxiilo waana dhacday dad badan baana ku dhacday waxyaabo aad iyo aad aan u wanaagsaneyn bay ku kaceen nimankani waa xaasidiin ilaahay ummadda ka qabto walaalayaal qodobkaana intaan kaga baxo sheergareeyo walaal fiidiyooga fariintan iswada gaarsiiya arrintan waa arrin xaqiiqa waa arrin dhaba waxaan idiin sheego beeni ma jiraan waxaan idiin sheego beeni ma jiraan khaatumo iyo Soomaalilandna way heshiiyeen walaalaheen gacmahaynu isqabsanayna walaalaheen baa inaga maqnaa walaalaheenna way noo yimaadeen Somaliland wax ka maqani ma jiraan Somaliland waa halka Soomaali badbaadin doonta haddii Ilaahay yiraahdo xaqiiqda u sheegaysa waayahay sheergareeyo walaalayaal fiidiyooga iswada gaarsiiya ficil baa loo baahan yahay ummadda jamhuuriyadda Somaliland dad bilaa ficil aad noqoteen طبعا عصربا وداوتانو سليد مع سريه ka sheekeynaya iyo boo faraase qofkiina idin difaacayo horta maxaad ilkuun ugu soo eegtaa sheergareeya oo ficil baa socday cid lacag nuguma siiso walaalayaal waxaanu ka hadlaynaa waa siyaasad diblomaasiya weey dagaal media aba socda propaganda socda waxa la rabaa in sharaftaada iyo dawladnimadaada la qaliyo koob iyo 80 ka qof sheer ha siiyaan iminka ilaahay sidoo idin yiriniyo ficilkii maxaa tumbeeydi kaga nugay dad wada ficilaada haydeen sheer gareeya oo jananka la shaqeeya oo Idris Tabshid la shaqeeya oo Ilyas Bursal la shaqeeya waanu idinko Facebook soo gali kari waayay oo khadka cagaaran bal idinka saarayo amxaara iyo mirqaan iyo qudun la idinku sheegay baanu life ka soo galayo waxaanu sharaftiini baanu soo celinay karaamadeyni baanu soo celinay waxa la isku dilaa waa media way share siya please and please sultaanka irir Soomaalaha taana xaqiiqdan idin sheegaya walaalaha irir Soomaaliya waxaan u sheegayaa walaalayaal 60kiina gacantiina la idinku xasuuqay gacantiina ayaa anagana lagu dhibaateeyay oo mustaqbalka iyaga nolosheedii lagu baabiyay waayahay maantana walaalayaal maantana bal car 280 ka dhaafta caaw bal car sheergareeyo 500 ma gaarsiinaysa arrimo serious aan ku hadlaynaayo maxaa idinku dhacaynyo maxaa idinka siilmaadeeraya say waxidin Somaliland meela dad been sheegayo waa ka sheegayna 200 bay gaaraan ninka waalana argagax basaaska gaalada u basaasaya dabac sar iyo Arabiyo annaga oo faa'iidadiini ka hadlaynay badbaadadiinina intaasay dhaafilaaday waay gaarsiiya sheer gareeya intiinaas إبراهيم ما إرسماله فقش إرسماله تدكو قلت بك فانسين ملا إرسماله أنا يدين شيء إرسماله هالكو كرد أنت وهوية أيها كوبا بعض الدولة دي سومالية المدوغي اللحدن كي ما أنت ندد كاقر حياة دمانا يا هوية أيها كل دمانا وأي هوية داد ماها أقول له داد ماها سياسة له داد ماها فعل له dad ma aha tashan kara dad ma heshiin kara inkaar baa Ilaahay ku riday nimankan imaka dhibaateynaya baa ma taqaanaa ay madax u doortaa iyagu horta miyaanay madax ahayn miyaanay wax maamuli karin waay deegaanadoodii bay u tashan kari lahayn maamul kari lahayn waxaan u soo noqonayaa labadaydii qodob ee ahaa shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliya sheergareeya ما عبد الرزاق لعق ماها قصب صح arrin xasaasiya socota meesha
maya lifeka waxaan u badinayaa walaalo waxaan idiin ahay difaac baan idiin ahay mubaashiraan idiin ahay kolba wixii jira ee cusub ee caalamka ka socdaan idiin soo keenaya khatarta qaranka jamhuuriyadda somalilan baan ka hadlaya xukuumaddii baan baraarujinaya shacabkeennii baan baraarujinayaa arrimo siiriyasa idinka sheertu ma idin dhibaysaa sheer iyo like iyo ma idin dhibayaa bal iminka ictiraafkii somalilan baanu idiin sheegaynaa waayahay baraha bulshada saameyn kumaydaan lahayn idinkaa laydin caayi jiray idinkaa laydinku addoonsan jiray waa la bahdili jiray waxa somalilan ka dhacaa la buunbuunin jiray mirqaanlaan isaaqlaan miyaad aragtay iminka ma ku aragtay wax ka hadlaya shaksi alla shaksiga somalilan soo qaada heedhade cirka iyo dhulkaan ka qariyaa cirka iyo dhulka waan buufiyaa baan kuli wallaahi bilaahi ninka aan mar buufiyaa somalilan dambe inaanu ka hadal miyaad aragtay xalaal walaal khamri weligay ma cabbin walaal ha igu dambaabin maasha allah dhulkii barakaysnaa baan joogaa noloshayda khamri ma cabbin markaan waddankii joogay way jirtay maraan qaad cuni jiray laakiin alxamdulilah rabbialcaalamiin qofka khamriga cabbaa sidan uma nuuro ummadda dantooda kama hadlo waddan ma jeclaado khamriga iyo qaadkaaban mataqaanaa ka wacdidayaa ummadda iyo dhallinyarta iyo tahriibka iyo ma khamri unbay idinkaga dhegtay ninkii reer sheekh isxaaqiba ma khamri buu cabbaa horta dadkan yaa ka khamri badan bal horta dadkan yaa ka khamri badan oo ka sino badan oo ka qurun badan magaaladaa garowe haddaad tagto mukhbaaradaa ku yaal khamrigu waa free etoobiya laga keena dumar jidhkooda ka ganacsadaa jooga kilka shanaad haddaad tagto hadda waa wallaahi waxyaabaha qaar inaanu ka hadalla ma doono oo annagu sidooda waanu ka xishoonnaa gacal iyo xididkaanu xeerinaa hadda waa wallaahi waa bir rabadaane magaaladaa jigjigee kilka shanaad laba tallaabo markaad qaadaba mukhbaarad baad ugu tegaysaa mukhbaarad khamriga lagu galo naagu jidhkooda ka ganacsadaan oo qaadkii lagu iibinayo meeshaad martaba kiniisad baad ugu tegaysaa oo gaalada ku tukanaysa waa kilka shanaad wey kama hadlaan cidi kama hadasho new booliiska waxa wada dhalay waa carruur waa dumarkaa xabashida jidhkooda ka ganacsada jabuutidaa ma aragtay jabuuti cid ka hadlaysa miyaad aragtay meel walba mukhbaarada iyo dumar jidhkooda ka ganacsada kaartedee iyo kaarta kurwaa iyo waxaa la yidhaahdaa waa xaafadda garaacyada nin sheekhaaba waxaa la yidhi 3 buu ugu duceeyey magaalada jabuuti faraq kowdhe faraq furin iyo faran 3daaba waa laga helaa xaafadda kaartedee iyo kaarta turwaa la ydhaayo dumar jidhkooda ka ganacsada mooyaane meel kale ma joogaan khamrigu waa free magaalada muqdisho waa la mid ma arkaan war somalilan inuu dhuumasho shaksi ku soo geliyo caalamkaa mooyaane meel si friiya lagu iibiyo ku arki maysa 360 masaajid miyaa horta somalilan ku yaalla mise way ka badan yihiin haddaanay kunba ahaynba labadii tallaabo markaad qaadaba masaajid baa ku yaalla culimmadoodu waa 480 oo sheekh weey jamhuuriyadda somalilan ee barakaysa waryeennaan been isku sheegin qabiilada ugu khamriga badan waa la yaqaanaa waxay ka soo jeedaan dadka garowe iyo jigjiga iyo garbahaadle iyo dega bay ka soo jeedaan annagu inaanu magacowno ma doonayno waxyaabaha qaar baanu ka xishoonaynaa ma garatay somalilan waa run xuduudkii bay ku taallaa qaadku jabnaan buu ku soo galaa inanka hargeysa joogaa amba berbere jooga burco joogaa $1 wax ka yar buu ku qaylaa muqdishona $20 buu ku qaylaa ninku qaad miiroo laydhaa diyaaradaa loo soo saaraa lacagtoodii qaad baa qaatay jabuuti laydh ma haystaan oo biyo ma haystaan kaneeco iyo kulayl iyo kooraan la'aan ayaa qayrkood ka reebtay waxoogina qaad bay siisteen maxaa hargey somalilan unaad indhaha sidaa ugu soo taagaysaan meel walba qabri iyo qaad iyo qurun baad ku haysaan waaba soomaalida maxamed eega idinku ilmaadaraya sheergareeya fiidooga barnaamijkii baan usoo noqonayaa walaalayaa
mirqaan laantaysa hayaan oo idinkuwa miiroo laan baa tihiine oo kunfaran la laan baa tihiine yaa deegaanada nimankaa walaalaheen ay degaan ma jecli qabiilkii waan ka tanaasulay qabiil dambe magacaabi maayo laakiin gobolladan magacaabaya qabiilada ay deegaanada ay degaan garoowe jigjiga meelahay u badan yihiin waa meelaha ugu khamriga badan ee ugu kiniisada badan ee ugu mataqaanaa fusuqa badan wey bal car Hargeysa kiniisad ka soo hela waa kaas mirqaan laantaada isaa waxa alla idin halaagayba nimanka yuhuudda ma aragta ayaa dhinacna muslim bay iska dhigaan waxa ilaahay yuhuudda uga dhigay dhinacna waxay doonaan bay ka sameeyaan waa qaabka munaafiqa lagu yaqaan weey walaalayaal war Soomaali waa is wada taqaanaa annaga qaad caafimaad qabaa noo imaadee idinka qaad la soo buufiyay baa idin imaada miiro iyo waxaan la garanay waa runta aynu isku sheegno share gareeyo fiidiyowga walaalayaal qofkii arkaasi share gareeyo barnaamijkii baan u soo noqonayaa waa dawlad goboleed hoos taga Muqdisho waayo walaal ajad waxa tiri Somaliland waa dawlad goboleed hoos taga Muqdisho laakiin Muqdisho ceeb ma aha haddaan hoos tagno haddaad annaga Muqdisho nagu xuqin jirtay Muqdisho waa caasimad Soomaaliya Hargeysana Soomaaliya waanu kugu faanay sheekadaad laakiin mid baan ku sheegaya haddaad leedahay Muqdisho hoos tagta xarmaajo muxuu Somaliland u tagi waay muxuu cashuur uga soo qaadi waay xasan sheekh maxamed muxuu tagi waay sheekh shariif muxuu tagi waay cabdiqaasim muxuu tagi waay ruwaayad baad ayaad iska dhaadhicinaysaa waxa ku sheekeynayaa waa kuwa ummadda Soomaaliyeed beenta ugu sheekeynaya Muqdisho waa la talinayaa laakiin mid baan u sheegayaa qodobkaygii muhiimka ah u soo noqdo waaye war shalay cafisku walaal cafisku waa caadi laakiin runta in la isku sheegaa wanaagsan markaanu cafinaba waxaanu ku arkaynaa waxyaabaha damiirka iyagu diiday haddii cirdigaaga iyo maalkaaga iyo dalkaaga lagu socdiyo naftaada cafis baad ku shiraysaa marka qofka cadawgaaga ee jiritaankaaga iyo dawladnimadaada ka xun roog cas loo dhigo xil loo magacaabo la idhaa bahdi la idhaa Somaliland ma jirta dheh cafis iyo walaaltinimadu xaggay ka jiraysaa soo noqon maysa inaanu qaraxiina ku faraxno soo noqon maysa inaanu annaguna idinla ficiltano soo noqon maysa inaanu idin kala qaybino wallaahi waxaanu awoodnaa daqiiqada inaanu kaga saarno dadka garoowe iyo meelaha dega Soomaaliya inaanu daqiiqad kaga saarnaan karnaa Hargeysaanu ugu yeedhi karnaa suldaanka guud ee hawiye suldaanka guud ee dir banaadiriga dhaqaalihiina waanu haynaa waanu midayn karnaa waxaanu odhan karnaa iska saara waxan sidaad noo faragelinaysaan baanu idiin faragashan karnaa waad fahanteen baan u maleynayaa walaal ictiraaf haddee Soomaali soo maaha Soomaali maxay iyadu isku ictiraafi weyday maanta hilib googaan baa Muqdisho yaala Somaliland ictiraafkeeda iyo dawladnimadeeda intaad ku mashquulayso maxaad naftaada u badbaadin weydii maxaad hantidiina u badbaadin laadahay maxaad ciidanka amisom iskaga saari laadahay maxaad ciidan u samaysan laadahay Sacuudiga ayaan joogaa 500 oo Soomaaliya joogta qof kaliya oo fiisa Soomaaliya ku soo galay kuma jiro qof kaliya oo passport Soomaaliya ku soo galay tahriib bay ku soo wada galeen inay Soomaali yihiin iyo inay Etoobiyaan yihiin lagama yaqaan Sacuudiga safaaradooduna kama shaqaysaba Sacuudiga lama ixtiraamo lama qiimeeyo wax alla waxay adduunka ka yihiin ma jirto passportka Somaliland baaba kaga qiimo badan shacabka jamhuuriyadda Somaliland baa caalamka kaga nolol wanaagsan oo sharaf iyo cisi kaga nool aqoonsigaad ku faanaysaa ictiraafkaad ku faanaysa maxaad ciidan ugu dhisan weeyay aqoonsigaad ku faanaysa maxaad ciidan ugu dhisan weeyay maxaad naftaada iyo maalkaaga iyo cirdigaaga ugu badbaadin weeyay maxaad ajnabiga iskaga saari weeyay maxaad noloshaada ugu dhisi weeyay intaad aniga igu xaasidaysa waxaan jirin war aniga kaaga qiimo badan caalamka Somaliland baa kaaga sharaf badan nabad bay ku faanaysaa ciidan bay ku faanaysaa dimuqraadiyad bay ku faanaysaa horumar bay ku faanaysaa
25 sano Hargeysa iyo Burco iyo Berberadii la baabiyey maanta Muqdisho Hargeysa ayaa ka caasimadsan oo ka xasiloon oo ka amnisan hooyadayda midha tamaandhada iibinaysa hooyada dahabka la fadhida labada habeenimo iyadoo kiish lacag halka ku sidata ayay saqbarka gurigeeda tagtaa iyadoo cid alla cid ay ka baqasaanay jirin dahabkeediiba wadooyinka ku iibinaysa waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo adigana adduunkii oo dhan baa kugu soo ururay oo la nabad baanu ku siinayna war qaramada madoobe ma nabad bay ku keenaysaa amisom nabad ma ku keenaysaa miyaynu isxaasidnaa un walaalayaa adduunka laguma faano aqoonsi ee waxa lagu faanaa ficil waxtar baa lagu faanaa horumar baa lagu faanaa 30 sanad caalamka ka tuugsanaysa oo sanka laga qabsaday oo caruurtiinii inta la xado wax alla wax cid u qabanaysa aanay jirin Yurub waad qurmiseen khaliijkii waad qurmiseen meel walba calool qushqush iyo shiban biyood iyo maxaan ku dhahay macaluul baad la taagantii nacaawiya ilaa misaad ku jiraysaa nacaawiya magacii Soomaaliyeed waa disheen sharaftii muslimnimo waa disheen noloshiinni gaalaad ku xidheen wabiyada aad ku faanaysaan iyo badaha aad ku faanaysaan ma idinku filnaadaan aqoonsiga aad ku faanaysaan ma idinku filnaadaan war ma Soomaaliya idinku filnaan weyday maxaa Soomaaliya idinku salida walaalaya shargareeyo fiidiyooga walaalayaal ficil baa loo baahan yahay ciidamadii Itoobiya anaad leedahay Itoobiyaan baa ku haystee qofkii arkaasi shargareey walaalayaal SNM guul Somaliland soo dhawow anaad leedahay Itoobiyaan baa haystee Itoobiya fila Soomaaliya ayay ka talisaa markii horena gabraa fadhiyay imikana nin Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolada Garowe ayaa wakiil uga ah oo basaas ah oo fila Soomaaliya u fadhiya ciidankii Itoobiya Soomaaliya jooga ciidankii Kenya Soomaaliya jooga Somaliland ciidan Itoobiyaan ma jooga ciidan Kenyaati ma jooga Burundi ma jooga Ugandis ma jooga ciidan Yurubiyaani ma jooga Afrikaan ma jooga war dadka iyaga reer Somaliland weligood lamana gumaysan maayo xornimadana way ku dhintaan sharafta way ku dhintaan karaamada way ku dhintaan cisiga way ku dhintaan waxa ay u nool yihiin inay ku noolaadaan sharaf iyo cisi iyo karaamo iyo dadnimo waad faantaan u maleynaya markii horena Talyaani baa ku xukumi jiray oo barasaabiyun baad lahaydeen imikana qaramada madoobe iyo igad baa idin xukunta runtaan isku sheegno walaalayaa xaasidnimada aynu iska dayno haddaad doonaysaan inaynu walaalo noqonno oo aanu idin garab istaagno xaasidnimada iska daaya Puntland Amazon ma joogto soo maaha Puntland Mareykan baa jooga diyaaradihii drone-iska jooga oo dadka muslimiinta ka garaacayo ka leynaya Puntland waxay qandaraas ku soo qaadatay argagixisada inay lacag ku qaadato inay dhalinyarta Soomaaliyeed ururiso inay shacabka Soomaaliyeed iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed argagixiso ku tilmaamto Puntland amba Burcadbadeedland waa halka Soomaaliya dhaxda ka jabisay Cabdirashiid Cali Sharbaarka maxaa lagu dilay Idris Maxamed Dabshed la soo dhaweeyo Cabdirashiid Cali Sharbaarka yaa dilay maxaa se lagu dilay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo Cabdirashiid Cali Sharbaarka laba nin oo dimuqraadiyad ku yimid bay haayeen nimankii ciidanka dhisay bay haayeen Cabdirashiid Cali Sharbaarkana nin wadaada buu haayo daacada oo Soomaalinimadu ka dhabtaay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaalna nin aqoon iyo khibrad laba ahaa nimankii ciidanka dhisay bay haayeen xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku magacaabaan nimankii Soomaali isku keenay bay haayeen nin isaaqa ra'iisul wasaare noqday iyo nin qabiil majeerte kamida baa ayaa madaxweyne noqday ayaa Cabdirashiid Cali Sharbaarka lagu dilay yaa dilay Cabdirashiid Cali Sharbaarka nin majeerteeno ilaaliyihiisa ahaa baa dilay yaa ka dambeeyay nin majeerteeno Maxamuud Saleebaana oo lagaga guuleystay gudoomiyii baarlamaanka lagaga guuleystay waxay doonayeen majeertaanku iyagoo madaxweynaha inay gudoomiyii baarlamaankana noqdaan qabiil kamida majeertaanka Maxamuud Saleebaan oo habaan malaynayaa horta Cabdirashiid Cali Sharbaarka yuha majeertaan muxuu ka ahaa waxay doonayeen inay ra'iisul wasaare madaxweynena helaan wasiir helaan baarlamaankiina noqdaan
ninkii majeertaanka ka mid ahaayee madaxweyne laga guulaystay mataqaanaa baarlamankii ilaan madaxweyney lahaayeen oo majeertaanku madaxweyne cabdirashiid cashirmaanka madaxweyne ah ilaahay ha u naxariisto ayaa wuxuu lacag soo siiyuu soo abaabulay nin in adeerkiiya oo ilaaliyihiisa khaaska ahaa cabdirashiid cali sharmaake ilaahay ha u naxariista laascaanood waa tii lagu dilay soomaali halkii ay ka kici weyday baa meesha soomaali ka dhaqaaqi laadahay waa gobolka burcadbadeedland la idhaahdo runtaan idiin sheegayaa walaale waxa ay ummadda ku baambiinayaana waa lacag waa mansab iyo dhul aanay lahayn bay doonayaan aan u soo noqdo hanad xuseen mirqaanland qofku hadduu balwad leeyahay isagaa naftiisa xor u ah ilaahay baa kala xisaabtamaya kii khamri cabbaya iyo kii qaad cabbaya war qof naftiisa mas-uulka oo wuxuu doo balwad caalamka meel walba waa lagu cunaa balwadda soomaaliyana kama madhnoo garow waa lagu cunaa gobollada koonfurta soomaaliya oo dhan baa lagu cunaa kan mirqaanland la ydhaha inuu cunaaba suurtagala war mirqaanland wax laysku sheega maahee adeer naf baa dhimanaysa oo dhiig baa qulqulaya oo hooyaa goblamaysa oo dadkiinni baa googo'aya nafta bila'aadankii waxa ay ka weyn tahay oy ka miisaan culus tahay maka iyo madiina bay ka miisaan culus tahay samada iyo aradkay ka miisaan culus tahay nafta bila'aadanka ee muslimka maalin walbana 50 qof baa dhimanaya markaasaad halkan la soo fadhidaa mirqaanland isaaqland tahaysa war isaaqland ma dad baa ka dhimanaya isaaqland ma dad baa ka dhintaa arrinta tahriibka ee soomaaliya oo dhan baa tahriibta dhalinyaro reero intay gurigoodii gooraan habeenna ahayn maalinna ahayn intay ka baxeen aan hooyadoodii iyo aabbahoodii dhashay aan la tashan dee somalilan lagu eedayn maayo nin ugu talagalay inuu dhinto anba noolaado oo isagu tahriibaya cidi celin mayso laakiin somalilan amnigoodii maxaa ku dhaayay wadajirkoodii midnimadoodii horumarkoodii bay ka shaqaysanayaan dalkoodiina way dhisteen adigu maxaad ku faanaysaa ma amisom baad ku faanaysaa ma igad baad ku faanaysaa ma gabraad ku faanaysaa ma federaal baad ku faanaysaa ma cabdiweli gaas iyo ina ileeye iyo maxaa ku dhaayay ninkan waalane cagta dheer le muxuu magaciisii ii soo sheeg sheergareeya walaalayaal fiidiyooga ii soo sheeg muxuu ahaa axmed madoobe oo basaasiin u ah Kenya Ethiopia iyo Mareykanka oo dhalinyartii dhameeyay oo dumarkii dhameeyay oo le kontraad ku soo qaatay iyo ay mashruuc ku soo qaatay argagixisada lacag ku qaadanay ma waxaasaad ku faanaysaan dhintay een ilaahay ka baqayn ee ummadda Soomaaliyeed daroniska u adeegsanay ee xuduudka ku leynaya qabaa'ilka Soomaaliyeed inay leeyeen new police ya maxaaro u adeegsanay cabdiweli gaas daronis buu adeegsanayaa dad muslimiin u soo basaasay oo leeyahay al-shabaab baan halka ku helo si uu lacag yar u helo dhiigii ummadda Soomaaliyeed buu lacag ku doorsanay arsaaqdiba meel xun ka gashay dadkaasaad ku faanays maxaad se isku raaci weyday warniyo heedhe inaad dawlad noqotaanna waa diideen inaad calan ku heshiisaan waa diideen reer Soomaaliya inaad dad noqotaan oo aad laydin taliyana waa diideen Somaliland inay dal noqotona waa diidantihiin ilaahay siduu yidhiniyo islaamnimana waad sheeganaysaan taladiina iyo arrinkiina wuxuu noqday heedhade xaasidnimo munaafaqad propaganda maxaan ku dhaayay warar aan sal iyo raad lahayn dacaayado ayaad baraha bulshada la fadhidaa hadday maalin walba hooyada dhimanayso wallahi baan life ba ka hadlaynba barnaamijkii baan u soo noqonayaa labadii qodob maxamuud ayaa leh gawruusha walaal Somaliland Soomaaliya hadday hoos tagto iyo haddaanay hoos taginba wax macnaa soo kordhin mayso laakiin waxaad ka fikirtaa Soomaaliya hoos tagtaa iyo waa maamul goboleed iyo xamar baa laga xukumaa
25 sannaad la soo fadhiday social mediaha waana lagu ogaaday in aanad wax xaqiiqa aanad hayn oo waxa uga been iyo khiyaal yihiin dawladda xamarna aanay xamar banaadir baanay wada xukumin degmooyinka banaadir baanay wada xukumin madaxweynahan xaarmaajana markuu fila Soomaaliya ka soo baxayo baybayga amisom buu soo dhex kala waa la soo qariya waa ninkii sidii digaaga shabaka ka salaamayay ee shacabkii soo doortay isku aamini waayay waa la ogaaday beentiina waa la ogaaday ha ka mashquulin Soomaaliland waa maamul goboleed iyo xamar baa laga xukumaa waxaad ku mashquushaa oo aad naftaada iyo damiirkaaga weydiisaa war yaa tahriibaya dhimanaya war waxaan dhimanaya yeeyihiin war dadkan la qarxinaya yeeyihiin war cadawgan inagu soo duulay waayo war amisom maxay noo haysaa war sideen nabad ku helnaa ka fikir haddaad Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo walaalnimo aad ka hadlayso laakiin maxay macna ku soo korinaysaa Soomaaliland kuma ogabe 25 ka sanay Soomaaliland jirtay ayaad baraha bulshada social media iyo meel walba la fadhiday Soomaaliland xamar baa laga xukumaa maamul goboleed waaye fila Soomaaliya laga xukumaa Soomaaliya mid waaye Soomaaliya waa muqaddastaad haysay maxaa macnay ku soo kordhinaysaa haddaad 25 sano yoomal kaaf iyo been unaad ku jirto maxay ku soo kordhinaysaa waaye walaal haddaan su'aashaadii sii daba galo haddii fila Soomaaliya laga xukumo xukunku waa kaynu naqaanay dalkan Sacuudigeenu joognay ee barakaysan Allah barakeeye Riyaad baa laga xukumaa dhammaan goboladiisa oo dhanna waxay hoos tagaan Riyaad bay hoos tagaan Malik Salmaan Cabdilcasiisna tuulo kasta iyo gobolku kastana wuu tagaa oo isaga xukuma cashuurta gobol kasta oo Sacuudiga kamid laga soo ururiyo qasnada dawladda dhaxay ku dhacdaa dawladdu waxay mas'uul ka tahay migrationka waxay mas'uul ka tahay arrimaha dibadda waxay mas'uul ka tahay amniga xuduudaheeda iyo badaheeda iyo cirkeeda dawladda dhaxaa laga xukumaa bal waxa aad leedahay Soomaaliland fila Soomaaliya laga xukumaa baad isku qancinaysaa su'aal baan ku weydiinaya haddaan su'aashaadii sii daba galo soo xaarmaajo ka Muqdisho jooga maaha bal caawa ha taga Soomaaliland ha tago waa qodob hadduu tago oo la soo dhaweeyo roog cas loo dhigo oo uu tago xamar baa laga xukumaa aniga ku qirayeen xamar laga xukumo waa qodobka koobaad qodobka labaad cashuurta Soomaaliland laga soo qaado magaalada Muqdisho ku soo shubo runtaan ku sheegayaa qodobka saddexaad badaha Soomaaliya badaha aad sheeganaysaan leediin Soomaaliya oo dhan baa laga xukumaa iyo xuduudaha aad leediin Soomaaliya oo dhan baa laga xukumaa dawaaye xamar laga xukumo ciidanka aad xooga dalka Soomaaliya ku sheegaysaan xuduudka Itoobiya ee dhinaca Soomaaliya hal la geeyo xuduudka Djibouti hal la geeyo xuduudka Kenya hal la geeyo cashuurta hal la keeno haddii ay taasi dhab noqoto oo ay suurto gasho wallaahi bilaana ku qirayeen Soomaaliya laakiin maxaad been ugu sheegaysaan shacabka masaakiinta ee qaraxu dhameeyay cashuur Soomaaliland leedahay magaalada Muqdisho lama keeno waa qodobka koobaad ciidankan aad leedahay fila Soomaaliya ciidanka xooga dalka aad ku sheegayso xamar ma soo dhaafsiisna Puntland ciidan gaar ah leedahay Kismaayo ciidan gaar u leeyahay Soomaalilandna ciidankeeda iyo dawladnimadeeduba waa u gaar ra'iisul wasaaraha ma tagi karo ra'iisul wasaare Khayran idin sheegaya ra'iisul wasaaraha idin sheegaya ma inankii baan su'aashiisa qancinaya hay ugu qanciyo wax cad baanu hayaa hay ugu qanciyo ra'iisul wasaare Khayre dhurwaa Khayre miyaad maqasheen diyaarad buu Muqdisho ka qabsaday cashuur ma haysid baa tirso maaha cashuurtaydu shacabku bixiyaan bal beentu isugu sheekeynaya okay Cabdicasiis cashuur ma haysid baa tir walaa cashuurta ay shacabkaygu bixiyaan iyo cashuurta dekedahayda iyo xuduudahayga laga soo ururiyo kastamyadaydu waa 400 oo milyan weey cashuur ma haysid baad leedahay
adiga cashuurtaadu waa imisa waa 120 milyan wey marka laga reebo inta tuugsiga ee beesha caalamku idisiiso 120 milyan wey 120 milyan kaliya waxay ka soo baxaan dekada muqdisho iyo airportka muqdisho aniga miisaaniyadeedii cashuurta shacabkaygu bixiyaan iyo kastamyadayda iyo badahayga laga soo qaado waa 400 milyan ciidankayga 25 bisha mushaarka la siiya intaas oo kun weey ciidankaygu shaqaalahayga dawladda 25 bisha mushaarka la siiya layma ictiraafsana cashuurtayda ayaan ku bixiyaa amnigayga aad aragtay iyo waxa soo ciidan cashuurtayda ku bixiyaa maxaad markaa been isku sheekaysanaysa runta aynu isku sheegno walaale maxaan se ku falayaa xamar maadaama ay dad walaalaha yihiin oo dhibaatadeeda ku farxayn maxaan ku falayaa dad sheeganaya dal oo cashuur oo miisaaniyadoodu 120 milyan tahay oon ciidankoodii mushaar siin karin oo hooyada la qarxinaya amnigeeda sugi karin oo ciidamada ajnabi iyo 22,000 ay u soo shaqo tageen oo askari waliba uu qaato $1,200 oo igad ka taliso oo qaramada madoobay ka taliso oo ma taqaana ciidankii Kenya iyo Ethiopia joogaan maxaa ii geynaya manacas baana runta ku sheegaya dadka miidiyaha iyo baraha bulshada la soo fadhiya Somaliland waxa laga xukumaa Muqdisho iqanci walaalayaal waan ku qancinayaa iqanci dood xalaala oo caafimaad qabtaan ayaan kula soo hor fadhiyaa war xarmaajo ma tagi karaa Somaliland ma tagi karaa xarmaajo waad aragteen Kismaayo wuu tagaa Hirshabeelle wuu tagaa Galgaduud wuu tagaa Xamar wuu tagaa Shabeellada hoose wuu tagaa waayu Somaliland u tagi waay Cabdi Wali Gaas koonfurta Soomaaliya oo dhan wuu tagaa ninka maxaa ku dhahay cagta waranka Axmed Madooga way tagaan maamul goboleedyada madaxdooda oo dhan way tagaan koonfurta Soomaaliya waay ay Somaliland u iman waay maxaa ka hor taagan ilaan awood bay sheeganayaan ilaan waxay sheeganayaan inay maamulaan bay sheeganayaan yaa iiga jawaabi kara maxaad haysaa iweydiiso Sacuudiga markaad u baxaysay wax kala ma yaqaanaan baasaboorkooda horta meel ka shaqeeyaa ma jirto salaam calaykum salaam runtan caawidiin sheegayaaye Sacuudiga baasaboorka Soomaaliya ciqaamad iyo laguma qaato ma taqaanaa lagama yaqaano waxa la waxay laguma yaqaano haddii ay dawlad noqon lahaayeen oo ciidankoodu dhismi lahaa awood yeelan lahaay talo sideebayna yeeli lahaay shacabkeena dad yar way jiraan oo baasaboorka qaatay laakiin dad Soomaaliya baa haysta baasaboorka Mareykanka dad reer Somaliland iyo dad reer Soomaaliya baa baasaboorka Djibouti haysta xarmaajo baasaboor Mareykan u haysta حسن الشيخ محمود باسابور كنياتو هايستي الشيخ شريف باسابور كنياتو هايستي راكيني اولا مياد aragtay باسابور كيغ baad haysataan oo adduunka ku joogta Mareykanko intaas oo milyan oo ajaaniba baasaboorka Mareykanka haysta miyaad aragteen dad Mareykan oo leh baasaboorka iyaga baad ku ceeshisaan oo adduunka ku joogta Sacuudiga dad reer Somaliland sinjiyada haysta oo nolol hayo ku nool dad Sacuudiyaan oo la miyaad aragteen sinjiyadeedii baad haysataa dawladna way sheeganayaan aqoonsina way ku faanayaan haddana doqonimadooda iyo xaasidnimadooda iyo dullinimadooda inanta yar yeena kayraad aragtaaba wax ku leeyahay baasaboorka iyagii baad qurbaa ku joogtaa war baasaboorka ma qabiil baa leh Saudigan dawladnimo sheeganaya Saudigan gobonimo sheeganaya Saudigan la ummadda Soomaaliyeed ku sheegaya ma haddaad way su'aal baad weydiisay waxaad tiri Sacuudiga maxaad ku timid ilaahay baa keenay aniga Sacuudiga baasaboor Soomaaliyana waan qaadan karaa ka Djiboutina waan qaadan karaa laakiin runtaan idin sheegaya adduunkaan ugu nacabay baasaboorka Soomaaliya
qof damiir iyo dhiig la baan ahay saamayn baanay ugu yeelatay dawladdii afweyne aabbahay baa inta libidiblo loo xidhay habeen iyo maalin la garaacayo koronto lagu qabanayay dadkaygii baa ku dhammaaday ma bilaa damiir baan ahay marka baasaboorkii laygu baabiye laygu xasuuqay aan u doonanayo waxa aan ka xigaa inaan bilaa sharci ahaago inaan baasaboor Soomaaliya qaato runtaan kuu sheegayaa wallaahi waan awoodaa oo bilaahi waan awoodaa laakiin adduunka ayaan calanka Soomaaliya iyo baasaboorka Soomaaliya ugu nacaba adduunka ayaan ugu nacaba in kafiilayga noqdo waayo xor baanay anoo xoraan soo dhashay anigoo xora ayaana noolahay ilaahay baa aniga kafiiliga ah waay aan u nacabahay hayla yaabin inaan naco calanka buluuga iyo baasaboorka Soomaaliya inaan naco hayla yaabin dadkaygii baa lagu xasuuqay baasaboorka Soomaaliyana aniga lahaa yaa sameeyay baasaboorka Soomaaliya aniga igu faanayso halkee laga sameeyay yaa damiintay lacagtan Soomaaliya haysatay yaa damiintay baasaboorka yaa sameeyay xoogan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku faanaysa yaa sameeyay أنا كل شيء يهتبه باسبورك محمد حاج إبراهيم عقال بس سميه الله يرحم الراحمين نعسيو أديكو أن واحد الله واحد كله فتان تشري محمد حاج إبراهيم عقال بس سميه كرسي قرمده مذوبات كل هذا يا صحيحي عمر عرتقى لباس صحيحي وان الرشيخ السحاقة كرسي جامعة عربتها كل هذا يا صحيحي عمر عرتقى لباس صحيحي وان الرشيخ السحاقة عيدا كحوق الدلك الصومالية كفان سيا سميه waxa laga sameeyay berbera laga sameeyay airportkii berbere Mareykanka iyo Ruushka ay ma taqaana ay Kristeen baa laga sameeyay caafimaad baanu ku bedelan kareynay waxbarasho iskuulaanu ku bedelan kareynay wadooyin baanu ku bedelan kareynay dekada caalamiyaanu ku bedelan kareynay si aanu shan Soomaaliyeed isku keeno awood leh ayaa berbere oo bilaa leeyd oo bilaa biyo bilaa wadooyin oo bilaa caafimaad ayaa waxa uu maxamed xaaji ibraahim cigaal saxeexay oo aanu ogolaanay in ciidamo Soomaaliyeed oo awood la dhiso oo xuduudaha Soomaalida iyo shanta Soomaaliyeed soo celiya oo Afrika laga boqo sharaf iyo cisi Soomaali ku noolaata nacasiyo maxaad ogtahay ciidankii aanu dhisnay ee dekadaydii berbera lagu dhisay maanta berberi wada male wadada Hargeysa berbera u dhaxaysa shilka ugu badan baa ayaa ka dhaco dad baa ku dhinto markuu daadku imaado lama taqaana wixii xasuuq dhibaatadu ka dhacday baan ahayd ciidankii aanu dhisnay iyo baasaboorkii aanu sameynay iyo calankaanu 60kii idin keenay ayaa dadkayaga iyo dalkayaga lagu baabiyay oo aan la isodhan dadkan waa gob oo aan la isodhan dadkan waa muslim oo aan la isodhan dadkan waa Soomaali oo aan la isodhan dadkan waa loo aay oo aan la isodhan dadkan waa dadkii gobonimada keenay oo si arxan darra ah oo aan islaamnimada ka baxsan ummadeedii loo baabiyay 36 dawladood baan aqoonsanaa 36 dawladood ayaa markii aanu 26kii June 1960kii aanu dawladnimada qaadanay na aqoonsanaa Djibouti cidimay aqoon Faransiiska haystay shacabka Djibouti siliga lagu wareeyay meydkooda litir baa lagu fariisinayay dabada lagaga fariisinayay litir si aan caadi ahayn ba maxaa anaga xamarna keenay bilaa shuruud shacabkii Djibouti markaanu aragnay oo litir lagu fariisinayo electroni lagu qabanayo haragoodii iyo meydkoodii siliga lagu warayo shacabkii staff area oo Ethiopiaanki gumaysanayaan kuwii NFD markaanu aragnay ayaanu bilaa shuruud xamar ku nimid wax alla wixii aanu idin keenabaad maanta noogu faanaysa ood leedin baasaboorka ayagii baa Sacuudiga ku joogtaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Somaliland waa maamul goboleed wax jira ma war aniga wax ka dhigay dadka reer Somaliland koonfurta Soomaaliya aqli bay u tahay oo xuduud bay u tahay oo dhaqaale u tahay oo indhay u tahay oo dhagay u tahay oo aqoon bay u tahay bal 25 sanaanu ka maqanahay waabanu ka tagnay miyaad wax noqotid calankii baad haysataa la aqoonsan baasaboor baad haysataa adduunkii kursigii baad qaramada midoobay ku leedahay
jaamacatul carab baad ku leedahay igad baad ku leedahay bal miyaad wax noqotid kuu daayaya miyaad wax noqotid anigiina waad xaasidaysaa caqliga ku ahaa garaadka ku badbaadin lahaa halkanna waxaad la fadhidaa ma indhaliyo walaal cabdicasiis labadayda indhood way shidan yihiin saaxiibe laakiin waxaan diidayaa muraayadda ay ugu soo noqonaysaan diidayaa ma indhaliyo alxamdulilah baan ku jiraa lixdeedii laxaad ilaahay waa dhammaystiraya waa yahay walaalayaal wax alla waxaanaad noogu faanaysaan oo dhan hantidayadii weeye haddaannu idinkula xisaabtanno dadkaygii la xasuuqay hantidayadii la baabiiyey baasaboorkan calankan santi ku yeelan maysaan santi su-aal kalea ku weydiinayaa waaye haye maxaan ka kala daynaa faysal saaxib muran iyo indha adayg iyo munaafaqad iyo xaasidnimo ayay ku soo shaacbaxayaanay raganimadoodii noqotay su-aal kalea ku weydiinaya calanka buluugga ah iyo baasaboorkan iyo magacan soomaaliya ma awood baad igaga qaaday ma awood fideoga sheergareeya walaalayaa awood ma igaga qaaday horta awood miyaad igaga qaaday bal taasaan ku weydiinayaae snm ilaa boosaaso ilaa xamar bay qabsatay u s c iyo snm cabdilaahi yuusuf iyo snm ilaa boosaaso iyo xamar bay qabsadeen calankan iyo baasaboorkan aad igu faanayso dee anaa kuu nacay anaa iskaga tegey webiyadii iyo dhulkii ballaadhnaa iyo waxaad sheegaysay anaa kaaga tegey ee waan qabsan karayay dee maxaan uga tegey calankani dulmi buu galay iyo dhiig buu galay oo lagama yaabo ilaa aad iska beddeshaan in calankaasi calan idiin noqdo waa qodobka koowaad ummaddii keentay ee u soo dhimatay ee u heestay ee u gabaday baa lagu baabiiyey nabsi buu qabaa calankaasi calan idiin noqon maayo waa qodobka koowaad baasaboorkan aad sheegaysanna dee dadkaygii baa lagu xasuuqo lagu baabiiyo isaguna baasaboor idiin noqon maayo maanta ka somalilan taaan la ictiraafayn iyo soomaaliya waa isku mid adduunka somalilan baaba kaga qiimo badan ciidankanaad xoogga dalka soomaaliyeed leediin ma dhismayaan dee maxay u dhismi waayeen dadkii dhisay ee dhaqaalaha geliyey ee naftooda u huray ee u gebiyey ee u heesay ayay dee dib ugu soo jeesteenoo shacabkoodii bay xasuuqeen oy baabiiyeen dee cuqubay qabaan cuquba halkii lagu galay caw ku huridaa ma dhismayaan dee raggii ummadda soomaaliyeed kala dilay baa dee maanta xamar jooga waxa maanta idinku dhacaya shacabkaa la googoynayay iyo qaraxa iyo dhibaatadaasi maad ogtiin meesha idinka yimaadeen dee annagu waanu samirnay waananu idin saamaxnay laakiin nabsigii aad gasheen baa ayaa dadkaa waxa nabsigaa u guray raggii siyaasiyiintaabaa nabsigaa u guray hooyadaa googo-aysa diyaaradaha idin duqaynaya dhiiggaa qulqulaya miyaad ogtay bal car ha laydinka soo helo nin keliya oo idhaahdaan la saamaxo okay jareer weyne waanu soo dhaweynay okay adigiibaa walaal jaajuusa adigiibaa kenya etoobiya keenay soomaaliya adigiibaa mataqaanaa gaaladii wata haddana anigoo danahaygii aayahaygii ka tashaday baad ugu sheegaysaa waxa weeyi maxaa la yidhaha maroodigu tagarta saaran ma arkee takalata saaran buu arkay okay walaalayaal sheergareeya fideoga haa walaal yaa walaal okay waay aada iyo aad baad u salaaman tihiin xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo shacabka somalilan waxaan kula talinayaa dadka xamar taga ee roogga cas loo dhigayo ee mucaaridkeennaa laga tashado ha la soo celiyo go-aankii maxamed xaaji ibraahim cigaal allahuma salli calaa sayidinaa maxamed haddee ay walaalnimada iyo wanaagga aynu ku ixtiraamina joojin waayena waynu ka tashanaynaa ee u dulqaadan mayno kolba qof cadowgeennaa in xil loo magacaabo laynagu soo diro ina kala qaybinaya shacabka muqdishona waxaan ugu baaqayaa ayooda ha ka tashadaan aada iyo aad baad walaal u mahadsantihiin fideoga sheergareeya dagaalku wuu soconayaa miidhiyu waa soconayaa dee ninkii laga xoog badiyo laga dhaqaalo badiyo laga afbadiyaa la arki doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu